Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Magacayga waxaa waaye Dr. Sikran. Waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago arrin yara isdhahayo walaalaha waa uga faa'iideyn kartaa. Arrintaasna intaana guda gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo sababta aan u furtay YouTube channelkayga. Marka ugu horeyso waxaan u furtay YouTube channelkayga in aan soo gudbiyo muuqaal hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada, hadday ahaan lahayd dhanka caafimaadka, hadday ahaan lahayd dhanka ganacsiga ka faa'iidi kartid. Muuqaalo besna ma ahane in aan dadaal dheeraad aan idinla sameeyo maadaama aan ka arkay gaab weyn inuu ka jiro ganacsiga dalka Shiinaha iyo dhalinyarada Soomaaliya. For example, aan markaa Soomaaliya joogo kale waa isku dayay in aan ganacsi aan sameeyo oo website-yadan hadda for example Alibaba oo kale inaan wax ka dalbado. Asxaab badan aan leeyahay ayaa sidoo kale isku dayday. Koorsooyin xitaa ka qaateen. Laakiinse weli wax ka mira dhaliya ma lahan. Waxaan is dhihi karaa caqabadaha ugu waaweyn waxaa waaye marka ugu horeyso Alibaba ma la aamini karo 100%. Waxaa ka buuxo scammers, dad tuugaha ka buuxdo. Sidoo kale waxaa ka buuxo dad oo dalaaliin middleman loo yaqaanaa. Waxaa waaye dadkaas adiga waxay iskaga kaa dhigayaan shirkadii saxda ahayd inay yihiin. Shirkadii saxda ahna ma ahan. Lacag badanna way ku saaranayaan. Ma fahamtay inay ku dhacaan laga yaabaa. Midda kaleeto waxaa caqabad lacag haddaad diraysid sidoo kale sidee ku aamini kartaa dadkan inay alaabtaada kuu soo dirayaan because haddaad lacag dhiibin alaabta ma kuu soo diri karaan. Iyo macluumaad fiican inaad ka heshid agency-yaasha oo ka shaqeeya dalka Shiinaha oo Soomaaliya wax u diro. Marka waxaan arkay inuu gaab ka jiro dhanka oo ma arkino in la isku xiriiriyo dhalinyaradaas oo yar oo imaan karin Shiinaha lacag yarna rabto inay ku bilaabato ganacsi rabane inay noloshooda wax ka bedelaan. Aniga waa soo maray stage-kaas. Waan isku dayay Alibaba inaan wax ka gato. Alxamdulillah waan ku guuleystaa dhihi karaa. Laakiin markaa isku dayay Soomaaliya maan joogin. Waxaan joogay dalka Shiinaha. Markaa Shiinaha usoo laabtay ahayd. Hadda oo masterkayga usoo laabtay. Marka ugu horeyso inaan gaabkaas aan buuxiyo. Aan ka caawiyo qofkii rabo inuu ganacsi ka bilaabo dalka Shiinaha. Si ammaan leh hadduu rabo qofkaas in lagu xiro factory for example qofku usoo mari lahaayo kale iyo lacagtaadoo kale haddaad soo diraysid inaa meel ammaan aad soo dhigi kartid oo waxaaga guarantee ay ku ahaanayaan. Aniga ahaan waxaan bartay caafimaad laakiin interestigayga caafimaad bes ma ahan. Interestigayga sidoo kale ganacsiga waaye. Also interestigayga waxaa waaye dhalinyarada ani iga yar generationka ani iga yar oo hadda soo baxayso wixii ani aan ku dhaamo inaan u faa'iideeyo. Ma fahamtay? Iyo bulshadeeda Soomaaliyeed wax caafimaadka ku saabsan oo kale waxaan jeclahay markasto in awareness aan gudbiyo dhanka caafimaadka hadday noqoto. Jeclaystay wax aniga aan jeclaan jiray in liiga caawiyo maanta in ani dadka ka caawiyo. Ma fahamtay? Ilaahay wuxuu dhahay inna Allaha laa yuqayyiru biqawmin xataa yuqayyiruu maa bianfusihim. Ilaahay qoom ma bedelo ilaa ayaga naftooda ay bedelaan. Marka aniga haddaan jeclaystay inay dadkayga macluumaadkaas oo kaleeto ay helaan waa in ani nafteeda ka bilaabo. Ma fahamtay isbedelka. Horta taas ay igu soo kaliftay inaan maanta YouTube furto. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ahabbu an-naasi ila Allahi anfa'uhum lin-naas. Ilaahay wuxuu ugu jecel yahay dadka u faa'iideeyo. Wa ahabbu al-a'maali ila Allahi acmaasha Ilaahay uu ugu jecel yahay waxaa waaye duquulu suruurin ilaa muslim. Qof muslim inaa qalbigiisa farxad gelisid. Marka waxaa rajaynayaa insha Allah in aan wax badan idin faa'iideyn doono. Marka hadda waxaa rabaa inaan usii guda galo arrinta aan dhahayo ganacsiga ku saabsan oo rabo hadda inaan idinkaga faa'iideeyo. Sanadkan waxaa nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo bandhig aad u weyn oo sanad kasta ka dhaco dalka Shiinaha. Bandhiggaas waxaa la dhahaa Canton Fair. Canton Fair waxaa iskugu imaado dalka Shiinaha oo dhan ganacsatooyinkooda dadka factory-ga leh. Ma ahan middleman, ma ahan qof dalaal meeshaas waxaa imaan karo oo kaliya qof ganacsate oo ganacsigiisana asaga uu soo saaro. Ma fahamtay? Sidoo kaleeto waxaa la invite gareeyay ganacsatada caalamka oo dhan si u imaadaan
ay uga faa'iidaan yani connection ay samaystaan. For example qof hadda ganacsada hadduu imaado kale wuxuu helayaa 2 ama 3 factory oo 3 gobol ku kala taalo oo wuxuu ku helaa hal magaalo. يعني waa fursad aad u weyn waaye uma baahnid inaad yani dhowr gobol u kala safartid markaa jeena dhexdiisa imaadid. nasiiba waxaa u yeeshay sanadkan inaan ka qayb galo bandhigaas. markaa tegay wallahi waxaan arkay ganacsi like aad iyo aad Soomaaliya like noo anfacayo oo lacag raqiis ah ku bilaabi kartid ma fahamtay. Tanna waxay caawinaysaa dhalinyarada anoo kale ahaan jirtay oo raadin jirtay sidee ku bilaabaa ganacsi anoo haysto lacag yar ma fahamtay. qofkaasoo kaleeto wuxuu u baahan yahay bas qof hago qof wixii la hubsado maxaa la soo u bilaabo ganacsigiisa soo maahan. marka ani waxaan jecleystay maalintaas inaan soo aruuriyo business card-yadooda dhan. business card soo aruurin waa yar yahay ma fahamtay. dhowr maalin meesha la joogaa subax si loo imaado maqribkii camal laga tagaa adii dhowr bariyaa la joogaa meeshaas. marka subaxisa u baxo maqribkii soo laabin jiray bag-bag-iga qaatay oo soo buuxiyay ma fahamtay. waxaanu kaar waa soo aruuriyay waxaanu ugu talagalay wax kale ma ahan in aan maxaa la dhahaa maanta dhalinyaro anoo kale oo wadankii joogto oo rabto ganacsi inay bilaawdo oona diyaar u ahayn lacagta yarta ay haystaan maanta inay qasaaraan ma fahamtay. wax la hubo ay ku bilaabi karaan. iyo inaan dhiirigeliyo dad oo ma arkino sheeg isdhihi jiray waxaan weligaa ma gelaysid macquul waa yes waa geli kartaa ma fahamtay. inaad dadkaasoo kale dhiirigeliyo ay helaan maxaa la service oo ma arkino qof Soomaaligooda la afkooda wax ugu sharaxayo hadday rabaan in company lagu soo xiro maxaa la dhahaa isha ku soo xiri karo hadday ayagaba company soo heleen already ay rabaan companygaas in laga soo hubiyo real factory miya mise real ma ahan wax sax miya mise wax sax ma ahan xitaa yani in laga soo hubiyo dadka oo alaabta usoo dhiibayo kale Soomaalida agency-ga Soomaaliga oo kaleeto sheeg qof ku xiro kale hadday u baahan yihiin like waxyaabahaas yararka ah oo kaleeto qof oo idinka caawiyo kale hadday u baahan tihiin insha Allah waa isoo weydiin kartiin. waxaas kaara waxaa u soo aruuriyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee 70% bulshada ka ah ee shaqo la'aanta ah ee nolol maalmeedka aad uga cakiran yahay because dhamaantiin duruufaha in nolosha waan soo wada marnay. marka insha Allah hadaaba u baahan tahay factory u baahan tahay haduu jiro maybe kaararkan ahaayo inuu kamid yahay waa laga yaabaa ila soo xiriir. haddadan ani waxaa ku noolahay dalka Shiinaha waxbarashaan hadda u joogaa iyo inaan ganacsi sameysto laakiin waxaan jecleystay in aan also gaabkan jiro aan buuxiyo oo ma arkino dhalinyarada marka Soomaaliya joogo kale saan u jeclaan jiray inaan helo qof oo iga caawiyo arimahaas dadkaasoo kale ugu talagalay in ay ka faa'iideystaan. marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada. hadda wax su'aalo ku saabsan caafimaadka hadaa qabtiin su'aalo ku saabsan waxbarashada hadaa qabtiin su'aalo ku saabsan ganacsiga hadaa qabtiin insha Allah waxaa isku dayayaa in aan idinka caawiyo waxa idinka caawin karo biidnillaahi kariim. khayr badan idin rajeynayaa maca salaama.